السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة هي مواضيع لنا إنه كجهل جرني أرمها عفماتك كسر هذا مر لبعض مرصد حادبة وحندين رجينا يا إنا كسر تهين نلور في عن وفرحة له عفماتنا كل سنة وح موضوعنا إنه كأجينا مانتا وحلو يقانو صوك برشة الشركة يحرير كده هي هب نلولات كقفها موضوعني وموضوع انترستنا دخاتير ay awood saareen waliba gaar ahaan kuwa neurosurgeonka gaar ahaan kuwa qalliinka ku sameeya laf dhabarta qaybta xangulada iyo dareen wadayaasha ka soo baxa xangulaha kuwaasi oo ay waliba taageerayeen dhakhaatiirta beenka iyo xanuunka sida loo controlaa waxaynu u naqaanaa dareenka xanuunka maaha xanuunka laftiisa laakiin dareenka xanuunka sida loo controlo waxa ay dhakhaatiirtaasi aad ula yaabeen waxay arkeen patientkii ama qofkii xanuunsanayay ee soo booqday ee qalliinka u sameeyeen oo boqolaalkaasi iyaga oo si isku mid ah ay qalliinka ugu sameeyeen dhakhaatiir isku midana ay u sameeyeen deegaan isku midana ama hospitaal isku midana loogu sameeyay dawooyin isku midana la siiyay haddana nidaamka soo kabashadoodu in ay aad iyo aad u kala fog tahay waxay isweydiiyeen markaa why waa maxay sababta ay u kala fog yihiin labadan saddexdan afartan shantan qof ee aynu siinay nidaam qalliin oo isku mid ah xanuunku waa isku mid meesha qalliinka looga sameeyay waa isku mid laakiin recovery iyo kabashadii ay aad u kala duwan waxay dhahdeen arrinkani wuxuu u baahan yahay baaritaan cilmiyeed waa in la sameeyaa waxa ay daba galeen dhammaan patientskii ay hore ugu sameeyeen iyo kuwa ay u sameynayaan markaaba muddo 10 sano ku siman waxa ay taariikhda iyo habnololeedka qofka ay ururinayeen kadibna waxa u soo baxday in dadka ugu badan ee qalliinka sida fiican uga soo kabanaya in ay yihiin dadka noloshoodu ay isku saaran tahay ama wax dhibaato ah oo xagga bulshada qoyska iyo mustaqbalkaba warwari aanu ka haysan kuwa dhexdhexaadka ah ee meel dhexe si degdegan aanu kabanaynin aan kabashadooduna aad u liidanin soo kabashadooduna aad u liidanin in ay yihiin kuwa ay dhibaato yar nolosha ka haysato laakiin ay tahay mid ay xallin karaan mustaqbalkana ay rajaynayaan inay ka gudbaan kuwa ugu liitay ee soo kabashadooda ay liidato iyada oo loo sameeyay hadda wax wal oo isku mid ah macnaha hadaynu oran lahayn qofkaasi dhaqaale u dawada ku sii wada ayuu waayay ama qalliinkii ayuu waayay loo sameeyo ama neerastii u tagaysay booqanaysay iyo qofkii eegayay ayuu waayay waxaas oo dhan way ka simeeyeen dhakhtarka iyo hospitaalku wuxuu u dhameystiray dhammaan facility iyo qofkaasi ku soo fargarayn lahaa noloshiisa iyadoo waxaas oo dhan la siiyay ay haddana kala duwanaadeen taasaa keentay in su'aashan la isweydiiyo qofka ugu liita bay yiraahdeen marka qofkii ugu liitay ee isaguna recovery ama soo kabashadu wuxuu noqday qof noloshiisa stress u ka haysto dhinacyo aad u fara badan dhinaca bulshada oo deyma lagaga leeyahay wax la mid ah dhinacii qoyskiisa oo aan noloshii uu ku noolaayna ahayn mid uu ku faraxsan yahay iyo dhibaatooyin kale oo noloshiisa waxay yiraahdeen marka waxa anaga noo soo baxday in waxaan stresska iyo warwarka la yiraahdo inuu si toos ah xiriir u leeyahay nidaamka soo kabashada qalliinada iyo xanuunada oo dhan guud ahaan taasi waxay keentay bay yiraahdeen in markii dambe aanu ku fikirno groupkayagaasi in bal qaar ka mid ah recovery la eega bal in laga caawin karo dhibaatooyinka haysta qaar ka mid ah waxay noqdeen wax la caawin karo qaarna waxay noqdeen qaar aan la caawin karin laakiin waxaanu ogaanay bay yiraahdeen qaar ka mid ah in anaga aanu nahayba kuwa warwarka ku abuuray macnaha in dhakhaatiirtu ama dhakhtarka laftiisu uu yahay warwarkan haysta nolosha ka haysta mid ka mid ah sidee macnaha waxa ay sheegeen in maadaama oo qofkaasi aanu dhaqaale ahaan iska bixin karaynin wixii kaga baxay qalliinka ama recovery xanuunkiisa
in iyada lafteeda ay warwar ku abuurtay warwarkaasina uu keenay inuu soo kabashadiisu ay liidato miisaankii noloshiisuna sidaasi khalkhal ku galay. waxay soo jeedinayeen iyagu in institutionska iyo nidaamka dawladdu uu dib u eegis ku sameeyo nidaamka caafimaadka dadkana uu ka yareeyo stresska halka uu qalliinada u fududeynayana uu isku dayo inuu ogaado qofka haddii ay jiraan waxyaalo fara badan oo stress ah oo ka haysta nolosha inay kuwa ka fududeeyaan ka hor inta aan qalliinka loo samaynin. waxaan rajaynayaa in ilaahay nolosha isku keen saaro wax dhibaato ana aanu ina tusin. aad iyo aad daawashadiina ugu mahadsantihiin. wixii su'aalaha kulley xagga hoose noogu reebi doontaan. aad iyo aad baanan daawashadiina idinka mahad celinayaa. waxaan rajaynayaa haddii ay tahay markii koowaad ee nagu soo biirto in aad ama aadna aragto inaad nagu soo biirto. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.